Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay ka soo saartay bayaan cad ay uga hadleyso cudurka coronavirus. Wasaaradda Caafimaadka ayaa si toos ah uga hadashay, inkastoo horey looga soo hadlay cudurka coronavirus iyo dhibaan saameynta uu ku leeyahay dadka. Cudurkaas oo ka dilaacay dalka China. Cudurkaas ayaa wuxuu saameeyay ilaa ku dhawaad 10 qofood. Cudurka waa cudur halis ah oo dilaaha qofku ku dhacane si degdeg ah ayuu waxyeeleynayaa. Qofkan wuxuu ku sababi karaa inuu dhinto. Cudurka waxaa loo kala qaadaa ama uu ku faafaa in qofka qabo cudurkaas inuu hindhiso ama hindhistiisa ay kusoo gaarto biyaheeda ama sanka ama meelahaas uu ka gaaro, ama qofkii oo waxaa si zaid ah loo kala qaadi karaa qofka 2 mitir ku jiro. Calaamadaha ugu weyn ee cudurka novel coronavirus lagu garto waxaa kamid ah qandho oo dadka kale luqada u yaqaan xumad, qufac oo joogto ah qofka maanta inuu qufaco, qofka oo neeftu ku adkaato, dhuunta ama cunaha oo xanuuna, diif badan iyo madax xanuun. Qofka badanaa calaamadahana ugu badan oo lagu arkaa qofka waxaa lahay qofka temperature-kiisa inuu zaid u noqdo, qandhadiisa ay badato, qufaciisana zaid uu noqdo, neefta inay ku adkaato qofka. Mudahoriska cudurka waxaa kamid ah cudurkan coronavirus waa 2 ilaa 14 maalmood kadib markuu qofka soo galo fayraska. Kadib qofka waxay saameyn u yeelan kartaa inuu qofkan ama uu la dhinto. Ka hortagga cudurka waxaa kamid ah waxyaabo badan inta lagu soo taxay ilaa 6 siyaabood. Anaga hada Islaam nahay dad muslimiin aan nahay, maalin walbo waa weyse qaadanaa. Waxaa meelaha ku qoran waxaa waaye sanka inuu qofka dhaqdo, gacnaha inuu iska nadaafiyo. Anaga 5 mar baan weyse qaadanaa salaada ka hor. Qof walbo weysada inuu uu jadiidiyaa fiican. Waxaa kaloo oo xasuusnaataa cudurkan waxaa laga helay gobol ku yaala China oo loo yaqaano Wuhan. Badanaa waxaa loo soo gaabiyay wash hands, waa fahmi kartiin, gacmo dhaqo. U-dan waxay u soo gaabiyeen use face mask, isticmaal maskarada. Waxaa loo soo gaabiyay have a temperature check regularly, temperature-ka inaad iska checking gareysid maalin walbo. Waxaa loo soo gaabiyay avoid large crowd, ka fogow goobaha dadka ku badan. Waxaa loo soo gaabiyay never touch your face with unclean hands, wajigaaga ha ku taaban iyo sankaaga gacmo aan nadiif ahayn. Ka hortag wacan. Wabillahi tawfiiq. Cudurkan waa cudur horta dhammaan ummadda Islaamka saameeyay. Marka cudurkan waa cuduro badan oo hore loo sheegay inay soo bixi doonto. Waxaa looga hortagi karaa adigoo akhrisada ducooyinka rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam oo ina faray. Waxaa kamid ahayd Allahumma inni a'uudhu bika min al-barasi wal-junuuni wal-judaami wa min sayyi'il asqaami. Allahumma inni a'uudhu bika, ilaahay adaa ka magan galay, min al-barasi. Baras waxaa waa wax korka ku dhaco, baraska maqaarka qofka, wal-junuuni iyo waalida qofka inuu waasho miirka dhan ka tago, iyo wal-judaami qofku markuu duqowo wajigiisa dhan uu isbedelo asna nooc kale uu qabo oo ahlunaar camal u ekaado. wa min sayyi'il asqaami meeshaan ay ku jirtaa dhammaan waxii cudur dhibaataha inuu ilaahay ka koriyo. Marka ducadan akhriso subaxii iyo habeenkii. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.